السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وادin salaamay dhamaan asxaabta ku xiran channelkeena Lada Lifestyle meel walba aad joogtaan kheyr iyo bashbash iyo barwaaqo iyo nabad iyo caafimaad ku waara. ladan bariyahan kaligeeda kusoo babadanooso barnaamijyo hadba ciwaan gooni ah ayaan isku dayaa inaan kasoo hadlo wax walbo aan isleeyahay walaalahaaga Soomaaliyeed ama bulshadaada ama gabdhaha walaalahaaga ah wax waa kusoo ziyaadin kartaa ama wax ay ka bedeli kartaa ayaan hadaan isdhaho waa idin soo gudbiyaa. inta badan waxaan diirada saaraa dhanka familaadka ama xaasaska in la qabo maadaama aan kasoo gudbay aniga marxalada oo gabarnimada ama marxalada iskaabulnimada marba waxaa ka hadli kartaa marxalada markaas adiga aad ku jirtid hadaa gabar tahay waxaad mar walba doorbidaa ama aad aad ka hadashaa habka aad ku xulan lahayd qofka aad guursan lahayd ama nolosha aad la wadaagi lahayd qaabkaad ula dhaqmi lahayd qaabkaad nolosha iskula wadaagi lahaydeen. laakiin mar hadaa xaas tahay ama wiilkana uu yahay qof xaasla ah mar walba waxay diirada saaraan sidee dhismaha gurigaasi uu ku adkaan karaa sideen tiirarka gurigaasi ay ku adkaan karaan mar waliba diirada saaraan. su'aalo maalmahan dambe ani inta badan barnaamijyadeeda hadaad ku xiran tahay oo mar walba daawatid waxaan ugu talagalay ama aan ugu gun leeyahay waxay tahay dumarkeena Soomaaliyeed inta badan waxa waaye eed kama dhamaato eeda dusha naga saaran sidoo kale to aniga kama liidano dhankeenana waxa waaye mar waliba waan hadalnaa wixii aniga aan dhibsanayno ma qarsano mar walba soo sheegnaa waa ka hadalnaa. waxaan jeclaystay gabdhaha Soomaaliyeed badna waxa isweydiiyaan ama mar walba gabdhaha badna ila taliga dad u soo jeedina aniga gabdha badan waa dhageystaa markay ila taliga soo jeedinayaan inta ugu badan eedaha dumarku waxay saaran ragga. adigaba su'aal aan ku weydiiyay gabar yahay ama abaayo walaashay ahaa hawaryartay ahaa eedaday ahaa walaashay ficiga ahaa walaashay iga weyn abaayo ahaa xaas ayaa tahay waxaan dhahdaa inta badan wiilasha Soomaaliyeed romantic ma ahan wiilasha Soomaaliyeed gift ma keenaan wiilasha Soomaaliyeed out dad ma u kaxeeyaan wiilasha Soomaaliyeed waxyaalo surprise dad uma keenaan aan dhahnaa inta badan aniga iska maray waayo waxaa la badaba hal malaaya kulmiyo waayo dumar hadii la dhaho dhamaanteen waan jamacan ka wada nahnay oo waan ka wada simanahnay hadii hal gabar Soomaaliyeed maanta wax wanaagsan ay bulshada dhexdeed ku sameyso waxa la waa gabar Soomaaliyeed magaca xambaarsantaa waa magac aad iyo aad u mug weyn ma ahan magac oo raqiis ah gabar Soomaaliyeed ayaa tahay hadaad hooyo tahay laguma dhahay hebel hooyadiisa laguma dhahay laakiin waxa lagu leeyahay markaad bulshada ku dhex jirtid hooyo Soomaaliyeed xaas Soomaaliyeed marwo Soomaaliyeed gabar Soomaaliyeed mar waliba anaga hadaan dumar nahnay magac qurux badan ayaa xambaarsannahay laakiin saas ay tahay isla anagii ayaa magac iskaga ciyaarno isla anagii ayaa waxyaalo qaldan isku sameeyno adiga gabar yahay mar walba aad dhahdid ninkeyga ima sii hadiyad ninkeyga banaan ima bixiyo ninkeyga waxyaalo saas ima sameeyo adiga waligaaga ma isku dayday inta ina banaanka aadid oo fikradid oo inta lacag horta aan ka hormariyo waxaa laga yaabaa su'aalaha aan ku weydiin rabo inaad dhahdid aniga ma shaqeeyay oo biil ayaan qaataa oo ma awoodi maanta inaan banaanka inta aado aan waxyaalaha hadiyad ninkeyga aan u soo gado dhar ha ahaadaan barfuun ha ahaado waxyaalo oo hadiyada la soo keeni kara ha ahaadaan ma awoodi ayaa dhahaysaa waan ogahay laakiin biilka aad qaadatid marka ayuu laga bixinaayo kulama kuguma cuslo markii biilka marka biilka ayuu ka bixinaysid kuguma cuslo marka sidoo kale to ha wareerinta qaadanaysid baati ku gad cilaan ku marso waxyaalo marka ku sameysanaysid kulama cuslo laakiin way ay kula culus tahay mis weydiisay markaad xaajigaaga ama ilmahaaga aabahooda markaad hadiyad inta u soo gadid aad bacda hadiyadaha ugu soo xirtid markuu caaw shaqada ka imaado guriga jabi kale ugu imaado aad u soo bixisid markii uu soo qabisto oo dharkiisa iska soo bixiyo macawiisi soo xirto oo galaaskiisa cabitaanka qabowga markaas siisid inta giftigaaga u soo bixis macaan alaabtaana kula soo gaclooday isku jimay ama gasho
gabar walbo xaas waxaa qurux badan inay horta ka warqabi karto size kabaha xaajigaaga uu qaato size ka sarwaalkiisa uu yahay shaarkiisa cabirka uu qaato wax walba inaad ka warqabi kartid fiican xitaa hadaa xarqaan tagtid oo dhar tulin qurux badan aad u soo sameynaysid suut ha ahaado xelaad inaad yani shay kartid oo cabirkaas garabku waa intaas shaarkiisa dhirka intee noocaas balaaca saas wax walba inaad shay kartid qurux badan tahay markuu ninkaaga uu ka arko ina adiga hadiyad u keenaysid oo dhar u soo gadaysid oo barfuun u keenaysid waa qasab ninkaas busy kasta ha ahaado dabeecad xun oo kasta ha lahaa waxaa masti asigana inuu sidoo kaleeto uu ku keeno uu ku soo hadiyadeeyo banaanka aadaysa haduu asiga shaqo uu ku maqan yahay adiga xaafada joogta gurigaaga kaagsanaysa adiga doon meel aad bixis supermarket tag wax yar qurux badan soo gad caamarku imaado farta ka saar u keen macaan kula soo gaclooday si u fiirso laga habeen ku xig haduu soo ku keen laba habeen ku xigta asigna hadida soo ku soo wado ku keena waxyaalo badan aan noloshiin iska bedela laakiin ka waran hadaa dhaad asaga iima keenay anigana waa ugu keena ha ka sugin inuu asigana wax uu ku keeno u bilaaw haduu asiga yani u indha furneen inuu dad hadiyado u geeyo dhalinyarada yani horta bini'aadinka dhanaba isku dabeecad ahayn ilaahay shanta farood muusan wada simin qof walba dabci gooni ayuu leeyahay qof walba qaabo yani u dhaqmaa qof aan u baraninba inuu inta suuq baxo asoon xumaanka ahayn qof aad waxa jiro yani maankiisa ma keenayo inuu intuu baxo oo suuqaas tago wax soo gado uu qof u geeyo يعني حمانك ما أهان ودبعي أسيب له لكن دبعي قاس وحاب بدلك أديك نلشي سقصو بيره أديك المجال إسكاليك سوق عاد وح سوقت والهدية هل حبنين عدتها حتى يعني قيمة لها سوقت وصاحر حر بعد جفتي وصاحر وكان مع أنا كل صوت علوضي أنا سانكو صي هذا ما أنت وده حديد إن هبين كاجمد يعني أظن أفيرين عوا إن هبين كسند جورد أروس كان أظن دهينين عوا دلشيء أظن دهينين ودلشيء أظن أظن إن مالن أقندين هذا بحديد أو كيك نسوق جديد من عيسى أو سوق قرتد أو كنتد يعني مركو إن قلق وساق له وأركو إن كيك شمعي أدون شدن وياوا وفرحة سبرايس يكون قنيسة asigana wax ka sii qurux badan oo ku sameeyna laakiin ka waran hadii adiga bahan meel fariisi amal u fariisid oo wuxuu ku keenay cuntid qado quraac casha u karisid yani qof si kala amal da u dhaqmin nolosha Soomaalida qaar hada alxamdulillah waayahan dambe horta lamanaha way isbedelan sidii hore ma ahan laakiin hadii wali lambarka hore ku dhigantaa ka waran waalis qaba la islama kaftamaayo qadiidaas iyo quraacdaas la isku karna ay cashadaas biilkaas miiska la isku saara saatan fiicanta nabad bas wax kaftan sheeko labada qof inay yani waqti isla qaataan isla kaftamaan yani isla boodboodaan ma yaqaanaan dad qaar waxa arkaysaa markay arkaan gabar iyo ninkeedu isbursan ama qolka intay ka soo baxaan isla kaftamaayo waxay leeyihiin maxaa ilmo ma tihiin maxaa u ciyaaraysiin maxaa u dheelaysiin waxyaalahaas waxay kamid tahay jaahilnimo ووحيالها الصوماليين اسكو فاهمينين oo laba ilmo kadib mise hal ilmo kadib la isku soo furay ay kamid tahay laakiin ka war hadii labadan qof ay iskafteen yaqaanaan wax walba isdhahaan la iska xanaaqeen lama kala xanaaqaan la isdilaayo inta ka boodis qaniina maantadan hadiyada la isku keenayo xitaa outing anaga markii la haayo waxa laga sugaa xaajiga bas inuu ku dhaho soo bax outing aadina inuu ku dhaho bisal aasugna gabdhaha qaar badinkeenaba laakiin markuu shaqada ka imaado maalmo waxa jirto hadii wadamadan Soomaali marka laga soo Soomaali xitaa wiilasha jimca ma shaqeeyaan kulli jimca way ka wada joogan qaarkood xitaa bariyahan dambe meelaha qaar ka shaqeeyo waxay shaqeeyeen sabti axad kuwaas kale maanta amal ku joogo hadii subax quraacdiisa qadiis aasiisid galabtii amal inta dhar isku aadan u soo bixisid adna soo baxsid macaan soo bax banaanka aadina inuu iska diideynin soo bax dheh adii wad meel hebel maanta qurux badan la soo bax waxaan soo baashashin kafeegin wixii soo cabteen macmacaankin yarka sawir soo gashin farxadii ka siimtaa hada ilmo leedin ilmahaaga wado hadihina ani hooya noqday ilma ii jooga banaan ma aaday ilmaha way u baahan nafkooda inay hawa qaataan way u baahan inay marxalado kala duwan yani jawi ilooga meel kala duwan inay arkaan way qurux badan tahay ilmahaaga xitaa way u fiican tahay way ku farxayaan ilmaha aday ka tusaale qaadanaan hadii hooyadii aabii mar walba garabka is haystaan isla qoslayaan isla kaftamayaan isla ciyaarayaan ilmihii tusaale u tahay
way jeclaanayaan ayagana kaftankii dhinaca ka noqona laakiin hadduu ka warna hooyadii aabihii bujacbuus ay yihiin la salaama kan intuu mara ilmahaas xitaa ha ka sugin hadday goobo waxbarasho imaadaan xitaa ilmahaas farxaana ma ahaanayaan laakiin waxaa ogaataa canug hadduu furfuran yahay oo maanta dhan qofka meesha uu ku cusub yahay uusan ka dhigaynin meel oo hadda uu imaaday ee u noqonaysa meel uu weligiisa joogay oo farxad oo dadkii uu kula joogo hadduu yar yahay xitaa oo iska la ciyaarayo la kaftamaayo canugaas waxaa tusaale ku guriga uu ka soo baxay laakiin canug hadduu oo meeshu tagaba ilaa markuu 6 bil 7 bil uu joogo canug waxa laga yaabaa inuu dadka la qabsado uu furfurmo dhub inta kale uu aamusan yahay waxa u sabab aamusnaantaas hooyadii aabihii dhalay may barin inuu canugaas la kaftamaan la ciyaaraan may barin waxay barin bas inay cuntadooda iyo cabitaankiis ay siiyaan iskuulka geeyaan lacagta iskuulka iyo dugsiga laga bixiyo nabadii la dhaho waraa seexo dharkiiska siib waxaa sameey bis wax kale lama barin laakiin canuga markuu iskuulka imaado inta la ciyaartid la boboodid la sheekaystid saaxiib hadaa ka dhigatid ilmihii way farxayaan adiga tusaale ka dhigana beri ka maalin aday gabar tahay sidaas adiga ay sameynaysid ay reerkeedan u sameynaysaa hadduu wiil yahay sida hooyadii aabihii iskula dhaqmayeen ay reerkiisa markuu xaas yeesho ula dhaqmayaan laakiin haddii hooyadii mar walba ay la soo taagan tahay waxaas ima sameey waxaas ima yeelo jugjug meeshaad joog way mid kale aan gabdhaha Soomaalida aan u sheegay gabdhaheena Soomaaliyeed aan u sheegay waxay tahay aan iska dayno mararka qaar waxa dhacdo hooyadii aabihii isku dhacsan nin inaagtiisa horta waa masti way isku dhacaan maanta hadduu qof inta ku soo horfariisto ku dhaw heblaay ani ninkeyga intaas sana isla noolnahay weligeena kir ku isma dhihin qof kale hortaas run kuma sheegin been ku sheeg nin inaag waa sida ilkaha iyo carabka kale mar walba way isku dhacaan way heshiyaan waxaan ogaataa ilkahan iyo carabkan mar walba waxa tusaale loogu soo qaato way isqaniinaan haddana weli way isla nool yihiin taasna waa xikmad weyn oo samirka ay ka mid tahay ilkahan iyo carabkan haddii la samri lahayn mar ay kala daadan lahayn islama sii joogi lahayn laakiin waxa ilaahay uu sameeyay waxay tahay tusaale in samirka looga tusaale qaato haddii la isku dhaco in khilaafkii uusan banaanka u bixin oo guriga uu ku jiro xitaa kala aamusnaada idinka isqabo soo maahan gurigiin isla jooga isla hadlina 2 maalin kadib waxa arkaysaa idinka noloshiina caadi idinku soo noqotay isla kaftamaayo isla sheekeysanayo laakiin haddii ka waran oo maxaan ku rahdaa hal erey isdhiisin jirriq familka laba hooy hebel saasoo idhaa hooy heblaaysa itire ma dhismaayo gurigaas mar hadduu family mar walba problemka uu gaaraan ha sugin guriga inuu si tirkiisa ay si adkaadaan muhiimada guriga uu dhisan yahay waa labadaas qof ayagan gurigaas dumin karo ayagan dhisi karo ma fahamtay soo marka waxa mar walba waxa qurux badan ina iska deyno markii la isku dhacsan yahay in ilmaha hortooda lagu hadlo ilmahaas uqdada qaadayaan haddii hooyada mar walba waxay diirada saaraysaa qaladkeeda ma fiiriso anaga dhan dumar hadaanaane 99% wanaaga waxaan ka doorbidnaa 1% oo xumaan oo ninka uu sameeyay waxaa loo ilaawa intii wanaag intaas san iskula noola oo wax walba dhibi dhaaflis la soo maraayo waxaan ku ilownaa hal wax xumaan uu sameeyay ayaa maanta dhan loogu soo celcelinaa waxaas ay ugu sameysay kaasaa tahay intaa tahay ilmihii bay maqlaan ilmihii adi wanaagi ma maqashiinoo sid kaliya waxaa maqashiisay qaybta xumaantii uqdada meesha ka bilaabanaysa xitaa hadday isla nool yihiin ilmahaas aabood kuma faraxsanaanayaan soo marka iska ilaali gabar yahay marka adigaaga isku dhacsantiin ina ilmaha ku dhex buuqdeen waqti u raaso xitaa walow aysan munaasib ahayn in qolka jiifka lagu murmo oo lagu kala gardhigto aysan qurux badneen oo culimada dhan ay ka wada hadleen laakiin si bay dhaantaa haddii ilmihii dhexdooda ilmihii buuq adigoo ka ilaalinayo markay ka hurdaan ama mar ay maqan yihiin oo kaleeto fadhiga waa ku wada hadli kartaan ama habeenkii qolkiina ku wada hadla bedelka ilmahaaga uqdad ay ka gali lahayd soo marka taasna iska ilaalino mid kaleeto markii wax xumaan adii ninkaaga isku dhacsantihiin waxa iska ilaalisaa dumar kale ala shirgeliso saaxiibtaada iska daa midka kugu soo sokeeyo qaraabahaaga ama cousin-kaaga amal ilmo habar dhashay ilmo waxa dadkaas ha kugu filnaado ina wax la sheegayso naftaada la sheergareyso wixii adi bedelka qof dumar la sheegaysan adigi ninkaaga waa isku dhacdeen ilkii caraba ay tihiin waa heshiiseen isla markii laga yaabo maalmo kadib ama 3 maalin 4 maalin kadib khilaafkii shali taagna inuu dhamaaday qof dumar u sheegtay
qof kale usii gudbinayn qof kale adiga waxa arkay reerkaaga ku dhisan oo waxba khilaaf aysan kugu jirin waxba dood isku haysanin in oo qof uu ku soo wacna heblaha kaasa dhacday adiga ninkaaga inta isla marteen in wixii dhan sheekay isla marto adiga niyad aad ka jabtid niyadaas yaa iska dil ada iska dilay qof kale kaama dilin iska ilaali inaad dumar sirahaaga la shirgareysid sidoo kale iska ilaali inaa ilmaha hortooda aad ku wada xaajootiin يعني أكو maxaan ula jeeda ku wada hadashiin sidoo kale isku day abaayo ina adiga bilaawdid ina gifti adiga ay keentid ina adiga dhaqdhaqaaq aad sameysid dabeecadihiis adiga bedeli karo adiga wax walba sameyn karo kan raal noqda videoga tii ibtisaam codkeeda uu soo galaayo waa iska fahmi kartiin oo ayaa leeyahay ilaahay nooma waay wax noo qayliyo alxamdulillah alshukrillah qayladooda ama oohintooda ama qosolkooda waa noo nimco waa farxad iyo bashbash iyo barwaaqo waa hadiyadaha ugu qaalisan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu bixiyo qofkan haysanin Allah siiyo inta haysta Allah u barakeeyo oo baari Allah uga dhigo marabi videogana idinku sii dheereeyo waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh